السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركا لي أنيقو على خالد محمد iyo casharadeenii taxanaha ahaa aynu kaga hadlaynay barakaal closter sadaraadeed walaalayaal casharkeena waxaynu ku qaadan doonaa insha allah find the value of trigonometric functions and their inverse value waxaa noo diray yani ma garanaysaa walaalayaal inaynu soo saarno yani ma garanaysaa walaalayaal sadarkiisaan triangle angaladan inaan soo saarno dhinacyadooda kala duwan sadaraadeed walaalayaal waxaa laynagu yiri triangle-ka koowaad waxaa layna siiyey allahuma istacaan calaa ma tasfu walaalayaal waxaa layna siiyey walaalayaal opposite-ka ayaa layna siiyey sidoo kalena waxaa layna siiyey hypotenuse-ki kadibna waxaa laynoo diray walaalayaal adjacent-ga ayaa laynoo diray iyo sidoo kale waxaa loo yaqaano xagashi ama titadii ayaa laynoo diray saa daraadeed walaalayaal marka ugu horeysa waa inaynu xasuusnaa qaacidadii ahayd saddexda qaacida ahayd so iyo ko iyo to saa daraadeed so waxaa weeye waa adjacent-ga oo loo qeybiyay hypotenuse-ka waxaa leeyahay so waxa weeye yani ma garanaysaa walaalayaal waa opposite-ka oo loo qeybiyey hypotenuse-ka halka kahna ay ka tahay adjacent-ga oo loo qeybiyey hypotenuse-ka halka toona ay ka tahay opposite-ka oo loo qeybiyey adjacent-ga saa daraadeed markaa waxaa laynoo diray marka ugu horeysa waa x oo ah yani ma garanaysaa adjacent-gii waxaana lagu heli karaa so haddaba so waxaa weeye opposite-ka oo loo qeybiyey hypotenuse-ka saa daraadeed oo lamid ah a oo loo qeybiyey c haddaba eeda waxaa noola mida 4 mitir ayaa noola mida halka sidana ay noola mid tahay 7 mitir halkaa waxaa kasoo baxaya 0.57 ayaa kasoo baxaya tiitadan mar dambe ayaan idin sharaxi doonaa halkaa marka 0.57 kasoo baxda waxaan soo qaadanaynaa qaacidadii pythagorean ayaanu soo qaadanaynaa oo ahayd c oo laba jibaaran waxay la mid tahay a oo laba jibaaran oo loo geeyay b oo laba jibaaran inaga waxaynu raadinaynaana waa b ayaynu raadinayna saa darteed b oo laba jibaaran waxay la mid tahay c oo laba jibaaran oo laga jaray a oo laba jibaaran waxay la mid tahay marka 4 oo laba jibaaran oo laga jaray 7 oo laba jibaaran oo waayo ah maxay c waxay noo taagan yani ma garanaysaa 7 mitir ayaa noo taagan ana waxay noo taagan waxaa loo yaqaano allahuma istacaan calaa ma tasfoonay 4 mitir saa daraadeed waxay la mid tahay 4 marka laba jibaaro waa 16 oo laga jaray 49 oo dabeedna laga saaray waa 3 oo laga saaray root-ka saa darteed x-na waxay la mid tahay 5.7 hadda waxaan soo saarnay dhinacii ahaa yani ma garanaysaa waxa loo yaqaano 5.7 oo ahaa yani ma garanaysaa dhinaca b ama x saa daraadeed hadda waxaa laynaga rabaa tiitadan haddaba tiitadan mar hore ayaan la soo baxnay tiitadan markaan la soo baxnay waxaa weye markaan seenka raadinay oo ah 0.57 waxay la mid tahay tiita waxay la mid tahay marka intaa rogaalkeeda la eego waxay la mid tahay 34.7 intaa uma waxaad gelinaysaa shift sign baad gelinaysaa calculator-kaaga saa kadibna wuxuu kuusoo saaraya isla intaa uma kuusoo saaraya saa darteed tiitadeedna waxaa weye ama xagashina waxaa weeye waa 34.7 saa darteed walaalayaal allah idin xifdiyo allah idin barakeeyo dhammaantiin sida casharada ugu xidhan tihiin casharkeena kale aynu qaadanaa waxaa weeye walaalayaal allah idin barakeeye waxaa weeye walaalayaal waa isla casharkan hoose ayaynu qaadan doonaa oo ah yani ma garanaysaa walaalayaal waxaa laynoo diray yani ma garanaysaa walaalayaal waxaa loo yaqaano waxaa laynoo diray saaragtaa walaalayaal waxaa laynoo diray yani ma garanaysaa walaalayaal taraaga kale oo qalooca ayaa laynoo diray waxaa layna siiyey waxaa loo yaqaano hypotenuse iyo sidoo kale waxaa loo yaqaano xagashaas ayaa layna siiyey saa darteed waxaa soo qaadanaa yani ma garanaysaa qaacidadan oo ah say waxay la mid tahay 12 oo loo qaybsay maxay way dhinac kasta markaa sin hooseeyaduna waa hal saa darteed waxaa cross multiplication ay isugu dhufaanaa markaa way waxay la mid tahay sin 60 oo loo qaybshay 12 sin 60 saa darteed waxaan leenahay dhinac walba waxaan u qaybinaa sin 60 saa darteed waxaan leenahay sin 60 iyo sin 60 oo isla baxeen baan leenahay way waxay la mid tahay 12 oo loo qaybshay maxay sin 60 ayay la mid tahay kadibna markaad geliso calculator-kaaga markaad geliso 12 haddii tusaalahaan calculator-ka uu inoo shaqeynayo aynu eegno aan idhaahna waxaa loo yaqaano 12 oo loo qaybshay sin sorry kale ayuu inoo saaray aan iska taajirna waxaan leenahay 12 oo loo qaybshay 60 sin 0.8 iyo waxaan la garanay inoo saaraya laakiinse haddaad calculator-kaaga caadigaa geliso isla markiiba wuxuu kuusoo saarayaa 13.8 mitir ayuu kuusoo saaraya walaal saa darteed walaalayaal cashirka taasna waxaan la soo baxnay waxa loo yaqaano
allahuma mustacaan waxaynu la soo baxnay waxa loo yaqaano adjacency-geeni ayaynu la soo baxnay. haddaba waxaa naga maqan waxaa loo yaqaano allahuma mustacaan opposite-ka ayaa naga maqan. opposite-ka waxaynu kula soo bixi karnaa cos 60 oo yacni ma garanaysaa opposite-ku waa x oo uu naga maqan yahay oo loo qaybshay 13.8 dhinac walba markaa cos 60 hooseeyaduna waa cross multiplication 13.8 oo lagu dhuftay cos 60 waxay la mid tahay x waxay la mid tahay 6.9. sidaa darteed halkan waxay la mid tahay maxay 6.9 ayay la mid tahay. xalayna markaa opposite-keenu wuxuu la mid yahay 6.9. haddaba waxaa lanoo saaray waxaa lanoo diray xagasha ama qaacidadaas ayaa lanoo soo diray. waxaan leenahay markaa sin theta waxay la mid tahay 6.9 oo loo qaybshay 13.8 oo maxay nahay marka aad soo saarisid xagasha waxaad qaadan kartaa koh iyo so iyo to hadba kii aad dootid ayaad qaadan karaysaa marka waxaan leenahay marka doonayna inaan helo waxa loo yaqaan allahuma mustacaan waxa loo yaqaan xagasha waxaanu ku heli karnaa 6.9 waxaa inoo soo baxay x waa inoo soo baxday oo ahayd halkan waa maxay halkan maxay noo tahay 6.9 bay noo tahay. saa darteed waxaan leenahay 6.9 oo loo qaybshay baxay adjacency-ga oo ahaa 30.8 meter. saa darteed waxaan leenahay theta waxay la mid tahay shift sin 0.5 intaa marka la isu qaybiyo waa 0.5. waxaan leenahay markaa calculator-kaaga shift sin 0.5 gali waxaa kusoo baxaysa xagashaasina waa 30. طبعا waxaan umaleeyahay xiisadeeni intaas ayay noogu tahay xiisad taro kala kulmi doono dhabaad waxaad ku dhaafayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.